xaflad si heesare loo soo agaasimay ayaa qabsaday iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Sheekh Cabdi Xafiid oo ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Ardaydan oo isugu jirtay kuwa dugsiga sare dhameystay iyo qayb dugsiga dhexe u soo idlaaday waxaana ka soo qayb galay waalidiin, aqoon-yahano, madax ka socota jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. dhammaan ardayda ayaa wajiyadooda laga dheehanayay farxad aad u ballaaran waxaana goobta ay ka soo jeediyeen khudbado kala duwan oo taabanaya meelo aad u fara badan. taariikhdii sooyaalka qoraalka farta Soomaaliga oo dhameystiran sida ku qoran dastuurka qabiyada afka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa af Soomaaliga ma iyo maxaa tiri 44 sano ka hor Soomaaliya ma aysan lahayn far qoran xiligaas dalka ma lahayn far loqol waxa lagu xiriiri jiray dhanka qoraalka afaf qalaad iyo waliba suugaanta umad waliba waxay leedahay hiddo iyo dhaqan soo jireen ah laakiin waxa lagu kala hormaro waa xifdinta hidaas iyo iyada oo qoran dawliga ah waxa lagu la xiriira afafka qalaad halka afkeenu ku soo ururay ku hadalka oo kaliya qarniyadan adduunyada si baa loo qaldaayo ruux muuqatay doonayaan sacbi ku qarinteeda ee welaysa qaab daran caruur cusub u laayeene ku busteena meeleeyihiin haddana qusun halaga taago qarniyadan saxaabada yuhuud kooqa maysan qabin qaybar bay xasuustaan sidii qoomka loo gale Khalid bin Walid baa qurtoo qaaqa sii jiray qisadoodu waa caan nimanka qudus dhacaaye hooyay ma hilmaami sharaftad hagoogantahay ilinki kaagooyiyo wali ciidibkii ku helay hagadii fooshadii dhiigii habaaq lahaa horadkaadii siisa hooyoy habeen barkii. geesta kale waxaa meesha ka hadlay khudbado dhaxalgal ahna ka soo jeediyey waalidiinta meesha ku sugnaa kuwaasi oo ay ka warbixiyeen heerka waxbarashada ay ka joogaan iskuulka Sheekh Cabdi Xafiid. madaxeed aan naga saareen macallimiintiisa iyo macallimiintiisa alxamdulillaah rabbil caalamiin aqoon la'aanta iftiin la'aan ma haddu alle u sugnaatay intaan soo qaban qaabisay qurxisay wanaajisay ayaan u mahadcelinayaa alxamdulillaah rabbil caalamiin quruxdana tii qiyaamo gaartay ilaah inuu Allah nooga dhigo waxaa la yiri dadaalaa waa gaaraa ardada inay dadaalaan ayaa la doonayaa ma casharka hadii in la isaga dhigo asan waxba wax kororsan asaga wanaagiisu ku maqan yahay soo qaban qaabiyay maamulka iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Sheekh Cabdi Xafiid waxaan leeyahay maamulka Sheekh Cabdi Xafiid hambaliyo horumar sare ayuu gaaray ma sha Allah sanadooyinka hor xafladu waan ka soo qayb galnay ma sha Allah maantana waan joognaa mid xigta aqoonta wax dhamaata ma aha ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku yiri qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun masamiin dadka wax bartay iyo dadka aanan wax baran ma jawaabtu waxa way maya masibna qofka wax bartay waa qof wax walba fahmi kara wixii xun iyo wixii fiican fahmi kara. dhinaca kale waxaa xafladda soo xiray maamulaha macadka ee Sheekh Cabdi Xafiid ayaa waxa uu gabagabadii soo qaatay dhammaan ardayda iyo waalidiinta ku sugan goobta uu ka dhacayso xafladda aadka u ballaaran oo ahayd iskuulka gudihiisa. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب حفلة وجدكيد وحوها وحفلة فريتان كسنة وحبرشدات كلابكم سجالي طبعا سديدي طبعا iyo shahada guddoonsiin arday dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada kuwaasoo ka qalin jibinaya dugsiga sare dugsiga dhexe sidoo kale qaybaha bareefadka caafimaadka kombiyuutarka ingiliishka carabiga iyo maadooyinka guud ahaan lagu qaato qaybaha bareefadka lagu qaato kuwaasoo lagu talagalay in sare lagu qaado waxbarashada qaybta macadka waxay halkaan maanta ku qaadan doonaan shahaadooyin kala duwan oo gaaraya ilaa iyo 120 arday ayaa qaadan doonta kuwaasoo isugu jira qaybaha kala duwan ee iskuulka uu leeyahay ugu soo horeeyaan qaybta dugsiga sare
24 arday ayaa form 4 ka qalin jibinaysa waxa ugu badan dugsiga dhexe oo 56 arday ay sanadkan ka qalin jibinayso oo qaybo kala duwan leh sidoo kale waxa kamid ah arday 17 arday gaarayso oo sida boorarka hadda hortiina ka muuqda ka soo muuqanaya oo ayagana sidoo kale qaadan doona shahaadooyin computer sidoo kale waxa jirta arday ka qalin jibinayso maadada carabiga ah sidoo kale waxa jirto arday ka qalin jibinaysa caafimaadka oo 22 arday gaarayso guud ahaan markii la sugeeyo ay waxay noqonayaan ilaa iyo 126 arday ay noqonayaan kuwaas oo shahaadooyin kala duwan qaadanaya shahaadadu micnaheedu wax kale ma ahan waa marqaati cadaynayso ama muujinayso heerka aad ka gaartay wixii lagu baray kastaba ha ahaatee waxaa waayahani dambe laga dheehanaya magaalada muqdisho goobaha waxbarashada oo ku soo fara badanaya oo dhammaan bulshadana ay u hanqabtay sidii ay waxbarashada kor ugu kici lahayd magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya cabdiraxmaan talante TV-ga galmudug magaalada muqdisho